الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافضحي بكاعو ودل إيا دبد بإذن كالسلام يساء ومدر جبوتي وحا سلام يا عاقل إسماعيل وحا سلام يا إتباقلال وحا سلام يا دولة دمان بسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkiyo baxardaada isagiyo boqshadaysan raadiyoyina bukaaco ha laga dhageysto waa qayla dhaan waa badbaado qaran waa dhilooyin waa dhacdooyin joogto ah siday ballantu ahayd. waxaan ku bilaabayaa gadiidshalladiyo cumar caaqil ismaaciil. gadiidshalladiyo cumar waa shahiid gacan ka xaqdaran baa dishay oo booliisa maleeshiyaadka uu hoggaanka u hayo magafe. waxaa falkaa foosha xun la inankaa yar loogula kacay ambase uu ku mutaystay in lagu dhagaroobo wax cadaalada iyo wax garsoora idinkama hayno. qarankoo isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u heelanahay cadaalad iyo garsoor dhaba. intiiba waad ka gaabisay gacan ku dhiiglayaashii ood cadaaladda horgeysana waad ka gaabisay. maxaa waajib nagu ah markaa inaan ku nidhaaho caaqil ismaaciil xal mahay sidee xilka wareeji waa dabuubta qayaxan ee reer jabuuti kula hortaagan yihiin ad guryaha ugu caburisay. waata ay noqonayso weliba down ismaaciil down baa raacaysa. markaa mudane caaqil ismaaciil arrinkaasoo dhan foolxumadaasoo dhan dhibaatooyinkaasoo dhan adaa ka mas-uula. adaa kitaab baallaha jaray. shalay markaad kitaabka baallaha jarayseed nasaasinaysay madaxweynean ahaadna lahayd haddana caaqil baad iskugu shubatay. anigana waxa igu waajiba maalin walba inaan gadiijo xaalkiisa ku weydiiyo waxa aad uga gaabisay. ummadda reer jabuutina waxaan ka codsanayaa mar walbood gadiidshalladiyo cumar maqashaan faataxada u mara waa shahiid gacan ka xaq daran baa dishay. ilaahay naxariistiisii janno allaha ka waraabiyo. weli waxaad haysatiin fu'aad sidii baad ugu dhegantihiin sidii buu gabood idinku jiifa sidii baad uga daba lulatiin oo doonaysiin dembi iyo fal aanu shaqo ku lahayn inaad u maleegtaan. waa foolxumada idiin taalla. liyatnaa fu'aad yuusuf cali waxa aad ku haysataan duuliyaha ciidamada cirka ee laba xidiglaha ah ee ilaa imika dermatologiina ay u timiday ay tidhi dawadii ay u qortay meel kulul kuma qaadan karo caafimaadkiisu uma asmaxaya halkan weli waad haysatiin. macdanta aad ka baadhaysiin uu ilmaha yari xambaarsan yahay annagu ma garanayno iyo waxa aad uga gol leedihiin. ninkaasi wuu bukaa dembi kuma haysataan falka keliyeed ku haysataa waxa weeyaan inankaan adeerka u ahay buu ka hor yimiday. dee qarankaba qaar badan ood adeer tahay baa jiro candhada ku haya dhulka kan de xeelad kale aad wax iskugu tihiin. xeelad kale iyaad kan wax iskugu tihiin. marka inta adiga wax kuu ah iyo inta aad danta ku wadato ayaa dadka ka xigsataa. kulligoodoo dhan way wada gaajoonayaan. way wada gaajoonayaanoo baktigaa xalaal u ah kuwii adiga dadka ugu xigay oo dadkaba kama taqaanid. marka inankaa yaree miskiinka ah ee saaxiibal ciyaalka ah ee jirkiisii googo'ay eed musqul ku xidha eed iminkana musqushii intaad ka saartay meel kaloo god kaloo kasii kululoo naar ah aad geysay. horta ilaahay bardanu salaama allaha uga dhigo. nabaradaa gaadhayna ilaahay ha u malmaliyo dabaylaha ha ka raaciyo. yarkaa yaree miskiinka ah liyatnaa fu'aad yuusuf cali waad naga haysatiin. ilaa imikaad haysatiin waxaad u haysatiin ma garanayna. fu'aad yuusuf waxaad u haysato ood ka baadhayso ummadduna way nala arki. cid walbi way nala ogaan. cid walbi fartaan ku fiiqaynaa. meel walbaan ka qayliyaynaa. haddaad moodaysa inaad guryaha nagu xaraysa namaad xirayn. xeroonna mayno inta ilaahay ka sokaysa xaqu ifayo. aamusi mayno inta xaq la helayo waan qayliyaynaa saa manqaaqda u haynaynaa. idinkuna waad ku soconaysiin. waad ku fadeexadoobi falxumaad ka qaadi kollayba godobun baad u maashaaye de gar eexo unbaad weligaaba ku jirtaye dee maanta waataad ku qashifmaysi. marka inankaa yaree miskiinka ee dhakhtarkiisii soo caddeeyey inaanu kulaylkan ku noolaan karayn maxaad u haysataa. wax haddii kale dee dhakhtarrada geeya dee maxbuuska waa idinka dhakhtarrada dhigee. isagu miyaanu u qalminin dhakhtar la geeyo miyaanu wadani ahayn inkastuu maxbuus yahay. waa laga gardaran yahay waa la dulmay waa la dhibaateeyey waa la xidhay waxba looma dhowran. maxay waxaasi ka dhigan tahay? dowladdaasi maxay ka dhigantay? waa magaceed. magaca dowladdaasi maxaa la yidhaahaa? la haystayaal inaan nahay unbaadna tustay. dowlad dadka afduubtay oo inqilaab ku haysa weeyaan dowladdaadu.
ceebta iyo foolxumada ilin ma nacdido ma yaxyaxdido ma xishootid waa caynaasho weeyaan kani maanta aad sidaa u leeleelinayso berri inuu caynaashe leeleelu fu'aad muta ilaahay waxba kuma aha adigaa mudanaya fu'aad waayo nin la tuuray baa la tuugaabay soomaalidu tidhaahaa ninka aad sidaa u caarcaarisay eed u damirtay waad mudanoo waqti baa ku hoos keeni oo ilaahay waxba kuma aha maanta waad ismahadisay inaad adigu awood leedahay baad isbedday laakiin awood ilaahay baa la xunba kacday baa tahay bashar baa tahay sanku neef laa tahay xaariya kaadiilaa tahay wax allaaliya waxaa dadka dheer tahay ma jirto xilkan iyo saldanadan annagaa kuu dhiibana iminkan annagaa kaala noqonayna kalsoonidii waayo waxyaalahaasoo dhan baa dalkii ka dhacaya markaa fu'aad xorriyadiisa inaad u sii dayso aday dan kuu tahay sii daysay iyo ma sii daynna adna waad socon ku talagaltaa adigoo sii dayn waaye baan anagu jeelka kala baxayna oo adigu socon oon adiga kugu bedelayna salulduus horta waa inaad soo taabataa caaqil ismaaciil ood ka war keentaa waa inaad ka war keentaa rag badan baad ku ciishood ku cadaabtee adna markaaga adkayso waqti dhow baa yimid oo waa lagu geynayaa bustaha waa lagu geyn waxba seesa oo bustaha ha geysana halkan geyso oo aqalkaaga haramuus maaragtay bacadkasta sii dhig iminka sii bara kulaylka ha kulayl ma taqaanide sii bara kulaylka iminka ha sii baro anaa kuleh waa dardaaran waan kuu digayaa nin loo digay baa la yidhi lama dilina waan kuu digayaa inaad saliilduu tagayso waa yiqiin waad og tahay adna ilaahay waa caadil nin badan oo ismahadiyeyba waxa gaadhay waa loo joogay taa markaan ka gudbo deeqaad haysatiin ood qaadateen ood maalintii dhaweyd booliis ku daadiso aad tidhaaheenood cirki iyo dhulka intaad qarisaan gabadh yaroo liyatnaaya oo khadiijo la yidhaaho maaragtay magafe adeerka u yahay looga soo dhigay askar awal markaad qaadato magafe dadka waxaad geyn jirtay nagaare maxaa tani halkan u keentay gaar republikaanka maxaad u keentay iyada gaardiga maxaad u keentay maxaad uga gol lahayd maxaad doonaysay ila dadka aad qaadato nagaare baad geysataaye maxaa sababay inaad halkan keento maxaad si aad u doontay waa naaga askariyade jaandaaranadu inay doonaan bay ahayd inay jaandaaranadu doonaan bay ahayd wax walba adaa dhex booday wax walba anaa dhameeyo yaqaana anaa magaalada seexin ama gafe cali caruur aygii balaqo cabdilaahi bataraa wax walba waan ku jiraa wax walbiba fartii dhaqaaqdaba anay raaciyo weeyaan magaca iyo sumcadda aad doonayso maxaa la yidhaahaa inanta yaree khadiije labaalaha ee carruurta ah maxaad u cimri dadejin berri baad meeshan ka tagaysaa oo latreed baabad ku dhowdahay waaba tahay iminkaabad latreed tahay maxaad u caarcaarin inanta yaree miskiinadda ah eed cimrigeeda u seejin ee dembi ugu samaynood u amri ceeb iyo fadeexad iyo foolxumo ayaad meesha la maraysaan ilaahayna wuu idin arkaya bismillaahi araxmaan marka waxaan ku leeyahay ceebtaasi magafow aday kugu kooban tahay inanta hooyada ah eed bilaashalmada la soo baxday ceebta labaadna ayaa kula qaybsaday dee waxaa kula qaybsaday gaar republikaanka marvin gaye saaxiibka kacaga hor fadhiya ee isaguna kaarihii diyaarsaday iyo hubkii iyo qorigii maaragtay gaariga lankurusarka ee qoriga saaran 14 cans yahay 14 5 qoriga la yidhaahaa saaran halkoor ayaad u diyaarisay adiguna maxamed jaamaco dadka inaad layso subxaan allah ma shicib baa la dagaalamaysi mise dowlad baa la dagaalamaysi waxba ilaahayna tusay waxaan kuu sheegaya xeradaada inanta yareed lagu haysta maxamed jaamaco adigu kuu keenay magafe halkaa fiihaa laaqiya waxbaa jira halkaa la baarayo waxbuu u gol leeyahay dee maxamed jaamac yooniskii gabood ayuu fal u sameeyey dembi waa ka hadhullaha la raaciyey ka ku xigaana malaha waa adiga dee uu doonayo inuu fal kale u sameeyo si kastiba isku jiijiito oo annaga isku doonni baad noo saarantihiin nooma kala sokaysiin nooma kala sokaysiinoo dadkan iyo dalkan godob baad ka wada gasheen laynimo wacada cafinayo isku doonni baad saarantihiin cabdilaahi maxay ahayday magafe maxamed jaamac marvin gaye kulli waa isku number baad tihiin ummadda ilaahay ee reer jabuuti cudud baad ku wada maalaysiin adiguna waxaad keentay xeradaadii baad gaadhigii land cruiserka ahaayee qorigii 14 qoriga saaran baad dadka halkaa ugu diyaarsatay ood habeenkiina magaalada u bixisaa oo dadka ku saasisaa ood kaga cabsiisaa laba daaraale inankii muxuu ahaayey armeriga haynaya tii reer daliidka khatarka ahaa xayd aaliyatuna xayd waxaad ku bedeshay
suuliyadna mustafa gooshay oo in adeerkaaya waa wada sidaa kani khadiija muxuu u dirtay waa in adeertiisa ay u soo qabatay inanta yar ee deeqa ee carruurta ee ilmaha naas muujinaysa ceebta iyo foolxumada baa idiin taala ma xishoonaysiin wax iskuma falaysiin mid dhaama ma leh dameer iyo labadiisii daan baad wada tihiin marka ilaahay intaad ka baqdiin dadka iska daayay shaqaysanaya masaakiinta dadka shaqaysanaya ee masaakiinta ah iska daaya inantaa yare deeqa cid may caayin cid may ceebin wixii iyada gaadhay kama ay hadlin wixii walaalkeed loo geystay iyo wixii ay ka diday unbay ka hadashay dee waad ka wada dideen kulligiin waad qaadi kari weydeen deeqa hadalkeedii dhamac buu idinku noqday dambeel buu idinku noqday dee waa xaqa waxaad la wada kardhanaysiin waa garanaynay kani hore u waashay batadaa horay ayuu cimaamada ay uga dhacday adiguna maanta ayaa la doonayaa deeqay lagugu khalisade ila maxamed jaabac yoonisba waxa lagu khalisay fuaad maaha adigana berrin baa la oran deeqa halkana wax lagu sameeyay ha gaardekoodkay gaar republicaankay joogtaayo maxaa lagu sameeyo baa berri la oran mars SDS baad geyseen waad soo celiseen ilmi yaraa baa loo keenay way nuujisay waa silic iyo saxariirun halkee adduunka lagu arkay hooyo dulmi diida oo tira war waxa siima qabanaya la soo xiraa la soo xiraysta hagee lagu arkay adduunyada oo lagu maqlay waa anaga inila yaaban baa waxaas wadanka yagii buu ka socdaa jamhuuriyadda Djibouti ha dadka aan aqoonow nabarta runta ni sheegayno waxba ni qarin mayno ceebta iyo fool carruurtayadii waxay ka buuxaan gabood musqulaha lagu xiray qaar kale meel kulul bay ku jiraan naarun jixiima ayaa adduunka loogu soo saaray kulaylka dhacay iyo hanfiga iyo bacsa saraha la marayay darkeysii xagaayowlaha ayaa carruurtii halka lagu wada cadaabay markaas iyaguna baaburro waaweyn iyo aqallo waaweyn oo qabow ku jiraan si waxa iyagu dadka ka xigaan dalka idinka dambigu idin ma qabto waxaad falaysiin la idinku ma arko dal iyo dunyaba waa dajiseene harajan reer harajan iyo inta la majaalistay ay dadka u diranayaan aragnayde maanta waxaan uga golleeyahay doonayaa dadka martida inoo ee loo gogol xaaray ee xaafadeena yimiday ee madaxweynayaasha ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiye waxa soo dhan maanta anigu dood baan ka qabaa doodaan ka qabaay waxa weeyaan Abiyan ku horeynaya Abiye dood baan ka qabaa doodaan ka qabaay waxa weeyaan Brin Nobel buu sita Abiy Soomaha isagoo Brin Nobel ka sita waa ninkii Fuaad soo dhiibay hadda balila eega oo halkii Fuaad uu keenay buu maanta isna cagta soo dhigay haba soo dhigay Fuaad godkii uu ku riday buu ku jiraa marka ninka Brin Nobel kiihi waxaas isla uga suurtoobeen waa su'aashayda u horeysa Abiye ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmedow adaan ku golleeyay maanta doonaya inaad dhagaha yara raariciso Soomaaliga waad iska taqaanaay isbedelkii wadankaaga Itoobiya imisa kino Itoobiyana ku dhimatay 5,000 ma la sheegay si wadankaaga isbedel uga dhaco marka annaga kaayaga ka adiga magan ku soo mooday gurigaaga yimiday sideed noogu soo celisay maxaad se ku bedelatay annagu arrintii boorka waan ogaanay maxaa kale oo qorshe ah uu ku wadaa aqalka yagu aruuraha soo guranaya adigu samiyaanad magan lahayn Brin Nobelna waa sidataay de ninkii agodkii aad ku riday buu ku jiraaye kala xaal bari Fuaad hadduu halka ku dhinto adiguna waad ku lug leedahay ogaanteed lahaw dambigu uu ku sudhanaya isagoo caafimaad qaba dalkaaga ka soo qabatay isagoo waxba ku geysan oo magan moodo Itoobiya u soo cararay marka maxaad oran de maxaad noo sheegi haddana afkaaga lagugula hadliyo gabadh doonaysa inay wax ku sheegtaan ku dhageysiinaya waa kana dhageyso iska maqaluun de nagu ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለምን የሰላምን ሽልማት በመውሰድህ ፉአድ ዩሱፍ አሊ ከጅቡቲ ሰዶ ወደ ሀገራችሁ ኢትዮጵያ በመምጣት አንተም መልሰህ ለኡስማኤል ዑመር ጌሌ በመመለስህ ሌሊት ቀን ሳይል ከመለስከው ቀን ጀምሮ ችግር ስቃይ ሽንት ቤት ውስጥ በመታሰር በዓለምም ሆነ በጅቡቲ ህዝብ ያንን ቪዲዮ በማየት ሁሉም ሰው ሆዳችንን አሞናል አንተ የዓለምን ሽልማት በመውሰድ አንተ ሀገር መጥቶ እጁን በመስጠት አንተ እሱን በመመለስ
በመለስከው ቀን ጀምሮ ብዙ ስቃይ ላይ ነው ያለው። አንተ ሀገራችን መዲናችን ጅቡቲ ዛሬ በመምጣት ምን ልታረግልን ትችላለህ? ለፉአድ ምን ልታረግለት ትችላለህ? እኛም መልስ የጠበቅንብህ ነው። አንተን የጠበቅንህ ነው። ዶክተር አብይ አህመድ فرنتاس أبي أحمد بيكوس عطا أفكي سيبان كلها هذا راديو بكاعة كالي والبوحي أفول بوجيس كأفريقيا لقاها لو كهذا عندهم مدحوينا كينيا نوي مدينة سواحل بام حقوق شيء مركا أبي أحمد أو وركا وانا كوب إحنا أفكا جينا حقوق شيء إن كأدا دلي أدا كود جروبي أدا سوديبي أدا نبرين نوبل كوكاتين نبضة أيام كمان توحنا ولا أنا إن أدلك يجيتي مدايته هل كي أدو سوديبتي آخر lagu geeyo yarkii yaraa adigu dalkaaga ma musqul baad ku xidhaa dadka askarta masaasaad ugu daran tahay waa su'aasha aday ku taala inaad kala xaashana waa kugu qasab waayo bari Nobel baad toode nabadda ayaad ku qaadatay Soomaha de nabadii bay kamid tahay in kaayra miskiinka aabaha ay todobada ciyaal leh eed wadankaaga ka soo afduubtay ay waliba ciidamada Djibouti wadankaaga ka soo dhex qaateen halkeed kalka dawlad ka tahay adu waa su'aasha ku taala وسؤال كوتالا أبي أحمد رئيس الوزراء إثيوبيا تهال كاسان كذا بحياة توكلا نقول ليه توكلا أيان نقول ليه وحنقول ليه هاي سومالي لان مصبحي بيجي ده هالك مصبحي السؤال ما كان كورا وجواب وحويان أدوغو صدق صندوق ما أنت صدق كاسنادود goolni sutaagaaga maxaa sababay soo dulmi iyo tacaddi waan diiday Soomaad oran de annagoo maanta dulmi ku jirna oo tacaddi ku jirno dhibaato ku jirna inaad maleeshiyad wadankaaga ka keento Ismaaciil ku gargaarto maxaq baad u yeelatay yaa ku baneeyay annaga dadka Soomaaliland waa walaalahayo daris baan nahay abiya abti baan isku nahay cashiiriya casabaan wada nahay Soomaaliya Somaliland kulli laakiin adigu nin madaxweyne oo barina ka tagayaa tahay xilka maxaa sakeenay inaad harajaan dhagaha u raariciso maxaa sakeenay meel dulmiyaalo oo dadka lagu dulmayo inaad barkinta dhigato la majaalisto oo waliba maleeshiyad soo siiso tiraahdo hadii la idin ka hor yimaado ay dadkiina idin ku kacaan taasi ma xaq ilaahay baa de guri nabad taalay dadku gar lagu qaadaa laakiin guri isagu holcaya oo intiisiiba maanta dibadda taagan tahay bando ku jirto nabadda aad la timaadeen aad ku gorfaynaysaan maxaa la yiraahaa Soomaalidu waxay tiraan ninka tiisa dareeyala ku kale ku dara Aqal Ismaaciil Umar waxa weeyaan mahmar Soomaaliyeed oo tiraaha baadida nin kula daydaya jiro inaanad heshana aan rabin Ismaaciil waa kaade bixiyow haddaad ogtahay haddaanad ogeynba weli mi soo talaabsado ku yimid daris baan nahay maalin qura miidin soo dhaqaaqay de waxaad la soo dhuqdhuqlaynaysa adigu maxaa la yiraahaa noo sheeg waxa aad raadinaysa maxaa la yiraahaa waxa aad umada reer Djibouti uga ceerduminayso maxaa la yiraahaa faduusha aad noo ka keentay waa gardarro maleeshiyaadkaagana diyaaradda aad ku noqonayso saaro ka hayso waad fashilantay waa la arkay waa la hayaa marka meel nabadi guri nabadi taalay gobiyohoye taaba leeydi gurigan maanta aad timaadeen nabadi ma taalay intoodii baa ku ciilan intoodii baa guryaha ku xiran intoodii baa jeelasha ku jirta caruurtii aad abtiga u ahayd ee inankaaga maxay ahayday cali seenyo caruurtiisii ayaa la doonayaa in xoog lagu qaato oo ooridiisii baa maanta jeel ku jirto ilmaheedii naas ku siinaysa jeelka ma dhaqan Soomaaliyeed ba ma dhaqan Islaam ba ma dhaqan gaal ba midna laguma hayo hooyo dulmi diiday marka taana xaajadaana inaad wax ka tiraaho way ku haboontahay cali seenyo waxa xaafadaada marka waxaan ku sheegay waxa soo dhiliyo waxa soo falxumaa yaala iyo waxa soo fawaaxisha meesha nabadda u timaadeen ee leedii waxba ku gogol xaaranayna waxaad ku gogol xaaranaysaan ma jirto wax nabado idin ka soo socotaana ma jirto horta dadkiisa iyo dalkiisa ha u soo dhaadhaco dadkiisa iyo dalkiisa ha nabadeeyo mucaaradkiisa u baahan iyo dalkiisa u baahan ha maartay gogol ha u sameeyo xoolaha maanta uu ku burburinayo dadkiisa baa ka gaajoonayo ka cawlan annagu Soomaali waan jecelnahay waa walaalahayo Soomaali waan jecelnahay waa abtiyaashayo Soomaali waan jecelnahay cadow ma aragno laakiin boqnahayna hayaan maanta
maanta oon isbedel doonayno wixii aad idinku shalay ka gilgilateen oo diideen yaad annaga doonaysaan inaad nagu muquunisaan dee maxaq ilaahayba miyay naga kiin qabataa haddaana ummadda reer jabuuti nagama kiin qabata de taa waa godob aan meelba loogu gaban taa adigaan kaaga baxaya farmaajaan usoo jeesanaya iyo xasan cali khayre farmaajiya xasan cali khayre oo isbedelka waddankiina muxuu ku yimiday ma ii sheegi kartaan farmaajo iigee maalintii layni lahaa maxaa laynigu jeclaaday maxaa laynigu doortay cadaalad iyo sinaan baan samaynaynaa soo maahayn ciidankiina 24 saacadood waad ka dhex muuqatiin waad dhex taagan tihiin soo maaha annaga ciidanka yaga musqushaa lagu xidhay dee duuliyo dhan oo laba xidiglaa oo dulman oo tacadi loo geystay oo mushahaarkiisii $50 maxay ahayday laga dhigay maxay ahayday $250 laga dhigo wixiisii dhan la goostay iyaa dulmay iyaa dilay iyaa dhibaateeyey wiilka maaragtay madaxweynuhu adeerka u yahay ee ciidamada cirka haysta colonel wahiib marka ciidanku ku dulman yahay dhulka yaga markaasaad idinkuna soo dhaqaaqdeen oo soo raaracdeen oo tidhaaheen halkanay nabadimo taallaan idin leeyahay nurta idin sheegaya wax nabad iyo gallada maanta jabuuti taalla oo loogu soo huranayay ma jirto waa maaweelo ma taqaanin idinku waa maaweelo wuxuu wado naftiisuu maaweelinayaa naftiisuu doonayaa inuu raalli ka dhigo uma baahna dadkan maanta bacadka yaala maantada aad jabuuti joogtaan waa bando curfew bay ku jirtaa waa jabuuti muxtalla baa la leeyahay jabuuti curfew bay ku jirtaa bandow bay ku jirtaa ma dhici kartaa markaa inay gogol iyo nabad u fadhiisato su-aasha idinkaan idiin dhiibay waa madaxda Soomaaliyeed ee meesha iskugu timiday markaasi waxa sheegaya cali khayre iyo madaxweynihiisa farmaajo annagu hiil walaal baan idin siinay maaha oo ciidanka iyaga halka ku baaba'aan idinku tala walaalo waayeelnimo siiyo waxa tiraan waqtigaaga u dhamaaday si sharafa kaga tagday runta u sheega inta ay 5 madaxweyne Soomaaliya iska bedelaysay annaga isaga un baan hor taagan de idinkuba taabaad raacdeen oo doorateen maxaa annaga naloo caburinaya de garabka yagaan idinka rabnaa shalay markaan hargabaynay Soomaali dhexday noo xidhatay maanta samiyaadna duleynaysiin oo gureynaysiin ood waliba maaragtay ay noo qabanaysiin cagaha caaqil Ismaaciil oo taladiiba aan wareejiyay de siday niga noqotay waa su'aal idinka idin taale midda labaad waxaan ku sheegayaa farmaajo ragga adiga colaada kugu wada ragga dalkaagu ka nabadgeli laayay de Jabuuti waa saldhigoogu miyuu isku kinkeeno u idin wada hadashiyay raggan uu yiri waa culimo uu qafaasadaha u xiray ee baananka Jabuuti ku leh ee dalkooda holcinaya ee annagana ragga yagii ku dhamaanaya miyuu idin dhex yimid uu idin nabadeeyay ilaan dad islaatihiin idinmu yeeri idinmu nabadeyn marka inuu filin idin matalayo taa ku qaata filin inuu idin matalayo taa ku qaata walaalka run wax idin la doonaya kuwanu magangaliyada iyo dhalashada Jabuuti siiyay uu ku macsuumo baananka u furay waa kuwa ay dalkiinu ka dagilaayahay yes or not hada doontii hadaana doonayn waad ogtahay xaqiiqda de ninka daacad ee wax fidinaya nabad gogol nabada fidinaya idinkiyo culimadiinan Jabuuti joogta ee culimaan nahay tii qafaasadaha sita gaardo korada loo sameeyay baananka loo furay waa dadka ay xamar ka dagilaadahay waa dadka ay Soomaaliya ka dagilaadahay believe or not waanad wada ogtiin xaqiiqda marka gartu de ilaahay bay taqaanaa gar ee xaana lagu yaqaanayo godob oo caaqilka iyagu madaxweyne ka yahay marka runta nii sheego sheekada Soomaaliya iyo Somaliland laba dawladood oo walaala ah tihiin shalay idinka wax isku darsaday maantana idinka kala taagan mid walba in halkiisa lagu raali galiyo si jecel yahay adduunkan hore u maray haddaad kala tagaysaan iyo haddaad isku darsanaysaan ma idinka isaga shalay idin kala kaxeeyay waa maya ma isaga isku kiin daray waa maya de qoriga dab kale idin ku jira waa kaayaga runta idin sheegayaano hadduu idin ka baxo idinka danu heshiin Itoobiya dagi xuutigan hubka laga iibinayaa dagi Soomaaliyadan hubka lagu soo daldalayaa dagi maxaad runta u diidaysiin ee xaqiiqda u waajihi laadiin geeska Afrika anagu naga hoyan laayahay oo naga dagi laayahay nabadaan ku caana maalayna ku faanayno dadkiisa iyo dalkiisuba nabad bay haystaan gaaja loo baqtiyaya saddexdii waqti lama helo Jabuuti beena waa la iska gadaya de maxaq ilaahayba marka Soomaaliyay godob ha naga gelina anagu hadaa reer Jabuuti nahay abaal horaan idin haynaa abaal rag baa la leeydi reer Jabuuti oo dhan baa idin qirsan shalay markaan halgamaynay inaad anaga na soo garab joogsateen od walaalaha ya ahaydeen sidii baan idinku han weynahay
annaga maaragtay laba diblaha noogu qabanina caaqilka intaasaan idinka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ciidankiinu halkuu maro ciidankiinu sidaad u dhex joogtiin annaga kuwa iyaga masquulahay ku xidhan yihiin marka meesha nabadi ma taalo gogolinayni ma taalo wuu isku maaweelinayaa waayo wuxuu ka basayray ay qalbadu ka qaraxday anaa runta nii sheegaya isagoo nii sheegi maayo laakiin anu waa nii sheegaya waxay qalbadu ka qaraxday Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaaliya shiray maalintii aad saddexdiin isku timaadeen halkii dhacday way dhacan tahay wuxuu u haystay geeskaba inuu isagu u sareeyo de nafsi baa yimiday waa laga maarmay haddana wuu idin xagxaganayaa wixii aad shalay ku heshiiseen buu rabaa inuu kala diri maayo de dadkan iyagaa isleh 99 markuu kursiga fadhiistay ilaa maanta unbuu Soomaaliya daba taagay muxuu ka keenay marka runta isku sheegno madaxweyne kasto Soomaaliyeed oo yimaado shir buu la galaa waxba heshiisiin buu yiraahdaa gunta un bay ka dhacdaa de marka ma ilaahay laga baqo war idinku danihiina u heshiiya annagay noqotay tala walaal waalidnimo siiyo oo waqtigii uu ka dhamaaday iska tawagal waan ku ducaynay dhaha oo si fiican ula taliya haddii kale annaga waxa noo soo socda ba iyo balanbal baa noo soo socdo madaxeedii waan haynaa oo idinka arkaya dadkii idinkoo maanta magaalada jooga inay magaaladu curfew tahay maragna waad ka tihiin balcar magaalada maro halayni mariyo orda soo arka wuxuu qarqarinaya baad la aragtiine ummadda ilaahay way wada ogaatay marka taasi waa guuliya galad inaad maanta timaadaan annagoo dhibana noo timaadaan ood aragtaan oo tirahaan halkan ay nabadi taala nabadi way naga dheertay intuu cirku noo jirtaa marka adeerow xaafadihiina ku heshiiya idinku gooniin wada hadla allah isku kiisakhiro bogiina burcada allah isku mariyo wixii dab idinku wadan allah idinka qabto annagay noqotay waan iska kicinaynaa ee idinku naga dhex baxa intaasaan idinka codsanaynaa salaamu calaykum taamarkaan ka gudbo waxaan u gudbayaa waxaa jirta shirkadda Air Djibouti wiil yaro Cabdiraxmaan Cali Cabdilaahi Cabdiraxmaan guri baay Vazi Franki dib weyn buu ku hayaa dibta dhacday waxa weeyaan shaqaalihii ilaa maanta kula hadlaya Caaqil Ismaaciil mushaharadoodii 60 70 80 90 kun buu ka goostay dadkii maxay kira ku bixinayaan bishii Abriil aeroboortka bixiyay mushaharkii 30% buu ka goostay bishan May waxa bixiyay haddana aeroboortka lagu amray aeroboorku wuxuu ka yiri koontooyinkii dadka ay si toos lacagtooda aan ugu shubay may buu ka yiri aniga ay soo maray war bishii hore adigii 30% ka goostay dadka masaakiinta u daawo xoogii baa leeyahay maya buu yiri horororof shaydaankii mis loo futeeyay waa ta dalaaq soo tiride eta barale loo to proclamer directeurkii aeroboorkii ka tir waryaasi u shubisaga Cabdiraxmaan baa loo shubay guri baay waa ka de 60 70 80 90 ku shaqaalihii ka goostay shaqaalihii maxay kira ku bixinayaan maxay wax ku bixinayaan Caaqil Ismaaciiladan ku dhiibay de maaragtay Air Djibouti hadee taa baralelo to proclamer yeelatay dadkani waa shaqaale maxaa mushaharkooga loo goosanaya waa saaxiibul ciyaale siday raash u bixinayaan wuxuu guriyii waa laga saaraya nin walba waxa laga yiri gurigii iga bax marka xagee geeyaan carruurta maharmus baa lagu keenaya reeraha adkaaran aad xabada la dhacdide de waxa saa ka socday ninkan aad meesha dhigateen iyo waliba ninka maaragtay director financier-giisa Xuseen Kambaro xisaab baa looga baahan yahay Xuseen Kambaro waa ninka dhulka wareejiyay ee xoolaha dajiyay ee horeyna inishkeeb u dhacay ee gabaad ka soo baxay idinka tuugiina lama qabto laakiin dadka kale number baad u yeeshiina shaqo ma helaan waa maxay Xuseen Kambaro waa la wada yaqaanaa ina geela arabna waa laga waraysan wixii xoolo uu ka dhacay ku kale maxaa la yiri Xasan Masri la yiraaho oo biiq isaguna meel uu naga soo galay ma garanayna waxa la wuxuu degree haysto waxa la diploma haysto ma jirto waa biiq halka uu tago biiq halkan uu soo noqon biiq halkan uu ka wareegi biiq Xasan Masri lama yiraahdo Xasan biiq waa Xasan Zumata si biiq ciyaalkan buu meel kasta biiqda ku haya ee ka qaba dadka kan adaa u keenay wadanigii baad cagta hoosteeda geliseen waxa kale oo jirta UN qandaraas ay siisay Air Djibouti bay siisay qandaraaskii markay siisay waa qandaraaska Yemen
kaargooga wax loogu geeyo bishii waa malyuun xoolaha ayoo dhan xaggay mareen annagu ma diyaarad kaargooyaan leena waan soo kiraysanaa tu kale haddana jirta diyaaraddii aad baari baan tagaynaa oo dadka ka soo guraynaa lahaydeen diyaaraddaasi jordaniya bay ahayd diyaaradda air jordani bay ahayd air jordani baad soo kiraysateen annagu diyaaradaba ma haysano la socda reer jabuuto magacna waan wadanaaye hadda la socda marka maxaa la sameeyey diyaaradda baa la soo kiraystay diyaaradda markaa soo kiraysato magacaad doontaad maaragtay ku qoran kartaa laakiin waxaa jirta markay hawada marayso oo maaragtay corsinia la yidhaaho oo registerka ay ku marayso hawada dee diyaaradeenu blacklist-kay ku jirtaa air jabuuti taa maad og tihiin magacaan leenahay hawada kuma marna dee magaca unbaa ku qoran air jabuuti laakiin markay hawada galayso magacyo kaley ku gashaa mar walba diyaarad bay soo kiraysataa mar walba shirkad bay magac ka soo kiraysataa maxaa sababay dee blacklist baan ku jirna xoolaa laynagu leeyahay lacag badan baa la leeyahay maxaa keenay maxaa sababay goormaan deynkaa galnay waan soo keeni doonaa iyadana dhuumaalaysigaa iyo tuugada un baan ku noolnahay dowladna waan sheeganaynaa taana ka waran lambaradii hawada lagu marayey ma haysano markaa cishaba magac baan ku marnaa iyo dowlad oon beenu sheegnaa awal suudaan baan ku dawlaynay dee saaxiibkeen hawaduu ka baxay raggii lahaabaa soo fadhiistay cishaba qola un ku been fur oo maaragtay iska sheeg waxaa doonto marka ceebtaa iyo foolxumadaasaa taalla air jabuuti waxaan rabnaa shaqaalahan la hadlayaa shaqaalaha air jabuuti baan la hadlaya waar cabdiraxmaan cali cabdilaahi waa nin boqolo oo sidiina ah shirkadda idinkama xigee shalay buu yimiday intaasoo sanaad ka shaqaynayseen waar ninku waa nina la xisaabtama sidee caruurtiisuna u raaxaysan kuwiinina bilaabiil u noqonaya doqonnimada reer jabuuti idin haysata waa taa soomaalidu waxay tiraa xumaatay samaataa mahmaa soomaaliyeed baa jirta oo tidhaaha xumaatay samaataa baa lagu kala baxay cabdiraxmaan iyo xuseen kabaro iyo cali xoodh intuba waa xaafadda islaanta etaa barale latoo baroclaame kumbani kuleli baa soo diratay shirkadana goonni baa loo yeeshay maxaa kolkaa dadka been loogu sheegay caaqil ismaaciil wixiiba waad xalaalaysay annagaa balaayo aragnay oo yaabanba sanadkan maanta reer jabuuti fajicii baa ka dhammaaday ismacaaneysku meel walbuuna geynayaa iyo istusku iyo iidhaydu laakiin gunta iyada waxaabaa yaaladee caaqil ismaaciil sagaara xaar muuqan doontay aas-aastaa markaasaad caruuraha iyagii ku waalatood jeelasha ku gurtay markaasaad durbaan tubanaysaa ood leedahay kaalaya halkan nabad baa taalle cirki iyo dhulkay kuu jirta intuu cirki kuu jiray nabadi kuu jirtaa dadkaagaa kuu baahan maanta bilaa mushahaarka ah ee caruurahoogii bilaa caalaha yihiin ee mushaharadoodii aad u xalaalaysay inan yaroo shalay aad keentay air jabuuti oo edo loo yahay kolba ku edo loo yahay ku adeer loo yahay maahina wax kale miyaad weydeen oo dadka ku tumanaya laakiin maalin dhow wax foolxun baa ka soo socda aniga waxba ha iga siin caaqil ismaaciil haddaad moodo reer jabuuti inaad aqal ku xidhatay oo reer jabuuti way soo baxayaan xaqoogana way isku istaagayaan ismaaciil hana dhaafaan leena down ismaaciil caaqil ismaaciil iska soco iswada dabagala khaatuma la-aantiina ceebta kalee taalla foolxumada kale xanta magaalada kuugu jirtaan kuu sheegaya ila lagu soo gaadhsiin maayo harajaan baad ku xidhan tahay dhaxalkii walaalkaa sacad maxaa u geeyey taa baraleen inay mas-uul ka noqoto ma isweydiisay maxaa u geeyey maxaa iyada u geeyey inay dhaxalkii walaalka allaha u naxariistee sacad xoolihii waddanka wixii uu ka xaabsaday inaad iyada tidhaaho ka noqo dhaxalka wareeji oo dhaxalka saa doonto ka yeelo hablahaaga ku qoro iyo inankaaga tii u dhalayna ay magaalada maaragtay taagan tahay ceebtaayo oo raggiinii magaalada taagan yihiin dee haddaba inayna waxba kaa socon oo xaalkaaguba maaragtay siriq yahay iska joogso meel xilkanna iska dhig ma qaadi kartid haddeeda maxaa dowladdan lagaaga dhiibi wixii dadkiinaad gurigaagii baad kala saari laadahay markaasaad leedahay dad dhan baan u talinaya oo dowladaan heshiisiinaya adigoo xaafadaadii dhaafila caaqil ismaaciil ninka doonaya in wax loo doonto horta reerkiisaa la eegaa iyo guntiisaa la eegaa iyo waxaa ka hoos kacay inuu awoodo inuu dadka ka joojiyo xaggee koronkor baa ku wada hor yaacayse wax walbi annagaa leh dhaxalkii walaalkaa baa lagugu haystaa etaa barale dhexda u fadhiisatay maxaad kalood ka sugi waddankiiba socoy waxay u xalaalaysay kiinanteeda qabay ee sanka kabada lahaa wixii kale waa kanoo waan arkaynaa dadkii xaqan lahaa ma jiraan xishooyo wax isku fal ciil iyo caraad noo dishay waan kaa yaabannahay yaab iyo ama kaag baad noo keento
waddankiiba uu kala tegey ummaddii ilaahayba way yaaban tahay waxaa dhacday tooley waxaa jirta meeshan yaree la yidhaaho qaraawilka waa anigii mar hore ka hadlay bisha 25keedii May waxaa dhacday miskiidka qaraawilka imaam waxaa ku qoran ninkan la yidhaaho Geedi Colonel Wacays walaalkii Geedi Boqore ayaa imaamka ah maalintii aan ka hadlay wuu soo qaatay wiilkii yaraaye sii tujinayna wuu eriyay waxaa jira aqallo u kireeyo waad ka arki doontiin sawirka baambada meesha lacag buu kaga qaataa jaarka biyaha miskiidka ayuu dadka cala aqal 5,000 oo faran ka qaataa guryo waxaa jira miskiidka ku naban uu kireysan jiray 25,000 ayuu ku kireeyaa waxa weeyaan ninka Geedi Boqore wiis mahadiyay inaanu dhalay oo maaragtay isaguna Cabdisamed la yiraaho oo maaragtay Cabdisamed la yiraahdo liyatna Cabdisamed oo isaguna maaragtay waa meeshor maaragtay gaardakoodka Colonel Wacays subagle walaalkii weeyaan halkaas ayaa waxa weeyaan ninkaasi aqalada miskiidka ku dhex yaala wuxuu ku kireeyaa 25,000 isagaa iskale 30,000 isagaa iskale waxa soo dhan biyaha isagaa iskale laakiin imaamnimada mushaara kuma qaato waa brof daraab laakiin halka sheekadu ka dhabaqday baan idin sheegaya sheekadu waxay ka dhabaqday Geedi Boqore waxa uu la hadliyahay tooley ninkan la yidhaaho Muumin Xasan Bare walaalkii baa jira oo gaardakoota oo la yidhaaho Siciid Xasan Bare oo gaardakoodka marka kaabu ka haya la socaya Muumin wasiirka awqaafta waa waalana ma igu wadan sida walaalkii Siciid Xasan Boqore waxa uu haya Colonel Wacays ayaa gaardakoodka ku haya ma soo shaqo tago lama hadli karo la socdaya marka muxuu sameeyay Muumin miskiidka dhan ee qaraawilka wuxuu u xalaaleeyay Geedi Geedi waa Colonel Wacays walaalkii Colonel Wacays Cumar Boqore Colonel Subagle walaalkii Geedi Cumar Boqore waanad ka wada arki doontiin fiidiyooga waxa sheegayo dhan xaalkii wuxuu noqday isku dan baan nahay waan kala danaysanaynaa waa masaajidii Ilaahay iyo imaamiyadii intaasoo nin oo Djibouti joogta qaraawilka gasha inan ka yare Cali iyo carruurta caynta uu eriyo adaa sheegu Cali maba naqaanaba anagu marka beydkii Ilaahay baa dilaal galay maxaad kolka u malaynde waan waalana ma igu wadan sida wasiirka awqaafta hawshaasi ma jirto amse ma jirto Siciid Xasan Bare gaardakoodka ma kamid yahay walaalka ma ugu xilanaysaa Geedi Cumar Boqore Wacays walaalkii inuu iska ahaado imaam uu waliba ku sheekeeyaa imika la tireed baan waxbarashada macalinimada ka galayaayo halkan baan doonayaa inaan sii haysto haddii qof la iga keeno la iga saari maayo buu yidhi bal daawada ma naftu la ballamay Geedi ma naftaad la ballamtay gabood sang baad gashaa qaraawilka ma imaam baa laga waayay 100 oday baa joogay ma laga waayay odayaashii xaafadda nin imaam noqda maxaad se ugu qoonsanay adu mushaar baabad qaadataay inta aad la tireedka ka gaadhaysid maxay meeshan kuugu xidhnaanaysaa imaamnimadu taasi maxay ka dhigan tahay de waxay ka dhigan tahay Muumin Xasan waa waalane ma igu wadan sida ayaa walaalkii haya marka adigana kula hadli maayo sida doonta qaraawilka ka yeel weeyaan sheekadiinu Soomaa isku wada fujuqso hawshu halka bay maraysaa Aqal Ismaaciil haddaad ogtahay iyo haddaanad ogeyn taa markaan ka gudbo waxa jirta dakhil foolxuma ka soo yeedhay magaaladii dakhil dhib baa ka taagan dhakhtarkii dakhil dhib baa ka taagan fiidiyoogana waad ka arki doontiin waxa jira nin medsaan sheef waxa la yiraahaa Xumed medsaan kala jira Dr. Jamaal iyo Dr. Xumed Dr. Xumed waa medsaan sheef Dr. Jamaal isna waa ku xigeenkiisa raggaasi dhakhtarka ma soo joogsadaan cag ma soo dhigaan ila dhageysta si fiican raadiyo haddii qof la mariyo haddii qof wax loo sameeyo aqalka loogu geeyaa halkaasay ku eegaan halkaasay ordonance ka soo sameeyaan la socda wax dawaa oo dhakhtarka taalana ma jirto wanaad arki doontiin fiidiyooga dhakhtarka dakhil siduu yahay Aqal Ismaaciil mas'uuliyadaada aawe keede hurdaayaw jiriqaagi aw aboorka ku noqday xoolihii saanteega Maxamed Warsame aw inuu aqal iibsado mooyaan wax kale aan ka fikirayn
dee dhakhtarkii dakhil sidii buu yahay maalin kastina dad masaakiina oo tuulooyinka laga keeno dhulkay jiifaan waad arki doontaa dhabdarrada taala dhakhtarka dawo ma taalo dadka masaakiintii halkaasay jiifaan cid u miciin anfarmiyeyadii waxa ma hayaan maxay siin karaan hawshaasaa taala dhakhtarkii dakhil ceebta iyo foolxumadaabaa taalla ballanna waad ku qaaday in la hagaajiyo ballantii horena inankaad soddonka oo ahayd jaamicteeley baa dig 75 malyan u footaysay iyo raadiyooyadii aad keentay dowladaha dariskaa laga iibiyey waad ogtahay ma dee wakaa mar walbiba mid aanad la hadli karayn baad xilka u dhiibtaa dee kana muxuu maanta yahay de maxamed warsame muxuu isna qabanayaa isna jeebkuu buuxsanayaa de waa sidaa un filinku waa la isku dhiibayaa step by step qolaba maalinteeda ayay doonaysaa inay dheragtay lacagaysato dadkii masaakiinta ahana waa adiga arkaya dhakhtarkii dakhil xitaa dokteeradii doktor xumedo bedsaan sheefa iyo doktor jamaal midna ma yimaadiin aqaladooday tagaan toddobaadkii maalin buu yimaadaa jamaal haddii la arkaba xumed lamaba arkaba ka warantaana maxaad odhan soo waraysadee tag ilan ma tegi kartide ballamihii aad qaaday ka mid tahay dakhil 5 gobolba ballamaad u qaaday 0 wax ka hirgalay ma jirto wax ka hirgalay ma jirto aqal ismaaciil marka ceebta iyo foolxumadaabaa kuu taalle wadankii wuu dumay waxna ma yaalaan dadkiina saasaad u wada caburinaysiin oo dhaqalada ugu xidhateen marka maxaa noo dana xalka iyagu waxa weeyaan xal mahay sida xilka wareeji ismaaciil down na dhaaf cirib barakale nagu dhaaf dalkiiyo dadkuba way surmiyeen waxaad noo soo wadana ma hayne wixii dalkaba dhabarkaad marsatay adiga xafladaha ku sameynaya gogolada ku fidinaya dadkaagina waa bilaakiniin iyo bilaadawo dhulkay jiifaan dhakhtaradaadii dhulkaa la jiifaa haye maxaa dadka ugu sheekaynte eed u yeedhanaysa asaagaaya ee dadkooga war u haya ee dadkooga kamid ee dhex jooga adu harajaan baad ku xidhan tahay nin loo talinaya doonaya inuu dadka iska dhigo inuu isagu talinaye waxaasa annagana haysta foolxumo kale jirta dakhil nin waxaa jira kontaabilka dakhil wihiib xaddi caateeye la yidhaaho wihiib xaddi caateeye waa kontaabalka dakhil wuxuu galaa sitee hodan iyo kaarteysad maba galaba dakhil ninkaasi markuu mushaharada soo qaado jabuuti tresorka markuu mushaharada ka soo qaado baankiisu ku shubaa markuu koonkiisa ku shuba ilamaan dhowr toddobaad 2 toddobaad markay ku jirtuu soo qaadaa uu dakhil yimaadaa hadday mushaharo tahay iyo hadday ratreed tahayba shaqadiisa ma sawirkana waad ka arki doontiin wihiib xaddi cateeye magaalada way u kala gooyeen dadku iyagoo 2 bilood bil mushaharada ayuu yimaadaa hadda farmiyeyadu primki covid-19 ka wali ma hayaan letreteegu markay maqlaan inuu yimid si uu letreedka u kala noqdaa uu hoyda ila nin magaalada degan hadduu yahay waqti kasta la arkiyo taana maxaad odhan kartaa dee kontaabilku waa inuu dakhil deganaada waa inuu dadka dhex joogaa waa inuu magaalada joogaa ma aha nin soo shaqo tagayo jabuuti ka imanaya waa inuu dakhil ka tagaa markuu lacagta soo qaadayo caaqil ismaaciil haddaad ogtahay iyo haddaanad ogeyn waxaabaa ka socdade dadkii masaakiinta ahaa markay maqlaan wuu yimid dad baa ka yimaada toolay heejadaha yoobaki bay ka yimaadiin gurcabis bay ka yimaadiin sankal bay ka yimaadiin casceelay ka yimaadiin ilaa gaalaafi bay dad ka yimaadiin waxaasoo dhani markay magaalada yimaadiin lama kulmaan de wuu ka hor socdaa waxay ku qasbayin inay marti noqdaan maalin iyo 2 inuu soo noqdo mana soo noqdo haye wihiib xaddi caateeye waxaasuu dadkii kula kacay koonkiisana eeg antere intay u noqoto markuu lacagta ku shubo halkaa koonkiisuu ku shubaa antere intay u noqoto waxa uu ka samays lacagta shaqaysana isagaa la hadha mayna riba ahayn dee xoolihii dadka iyo xaqoodii markuu halkaa ku shubay dee lama hadli kartid oo wixii kaa hoos kacay baad arkaysaa adna ma taqdar titkalamde laga barayba laga badi baa timiday caaqil ismaaciil wakaade waa ninkii dhanaa ee khasnajiga ahaa ee loogu talagalay inuu magaalada dakhil joogo ayaa kaarteysada iyo sitoo hodan gala wuu soo safraa ma seexdo ma joogo wuu yimaadaa wuu 4 qof oo arkayuu siyaa big dib buu cararaa cishaba yar buu soo cantuugaa uu soo qaadaa war dadku waxoogii bay u baahan yihiin hadday letreete tahay hadday mushaharo tahayba waxaasaa ka taagan dee gobolkii dakhil haddaad maqashiyo haddaanad maqal aniga iga maqal caaqil ila wax kuu sheegaya ma jirin wasiirka bijeegana waan u sheegayaa saa ku ogow de cabdi kariim ilan adaa tresorka xakumee hawshaabaa ka socota dee ninka wihiib xaddi caateeye waa hawshaasuu ku jiraa dadka reer dakhilna dirta soo ogaada weliba cabdikariin aadan sheerow tag baan ku leeyo cagahaaga ku tago soo maqal dadkaa waayeelka
uu ka dhuntaa magaalada markuu yimaado maalin subaxuu soo galaa galabnimada duhurkana uu soo kala rogaa waxaasi maxaq ilaahayba waar dadka u joog ilaa 5 la shaqeeyaa galabnimo oo dadku biirooga ha ka helaan waqti kasto ay ku baahan yihiin khasnajigu waxa lagu yaqaanay inuu magaalada dakhil galo hortaabay khasnajiye jireene oo joogeene ciif curufkan iyo qurunkan aad la timaadeen aad leediin mid kastiba aan lacagaysto maxay ka dhigan tahay wakaada aqal Ismaaciil waxa baa socda ku kastiba halkuu fadhiyo isaga ka amiira isaga sidoo doona yeelaya shicibkii baa dulman oo maartay la dhibaatadiina shicibkii bay ku dhacaysa waayo idinka caruurtiinii cuntada yaa uurka diyaaradaha u keena dabaqaya inii kaliya dhul qabow baad ku jirtiin you don't care maxaa ka galay haye dadka masaakiinta lagu tumanaya waxoodii weeyaan waa xaqii ay shaqaysteen waxa idin kala yihiin waxaad siinaysiin maaha waxaan aad isa siiseen ku lacagaysateen waa xoolahoodii maxaa kalka oranaysaa aqal Ismaaciil dadna u yeeratay gogol baa ii taala tiriye oo nabad waxba nabadaynaya tiriye de fawaaxiskana aqalkaagii buu yaalaa daaradaadii bay taalaaday magaaladii Jamhuuriyadda Djibouti ee nabadda ku faanays waa ka sidaa baa loo silco loo saxariiray maxaad oran de kolka dadka maxaad ugu sheekayn de afdhabaan dhabuunde iyo niman xishoonayn oo indhaxaydan oo soo xayiigan xayada iimaankay kamid tahay haddii tala ma haysid ma talin karaysid waqtigaagi waa la dhaafay iska soco maanta aad dhowdahay sharaf ku soco waa dardaaran waan ku digayaa anu waxba laguma sheegayo dadku way fiican yihiin oo bashbash iyo barwaaqa lagu leeyahay markay soo baxaan kaara lagala hortagaya oo xabad baa lagu ahaaya dhaawac iyo dhimasho timiday marka maxaa xageeda gogol itaala gogasha nabadda ee fidisay waa halkii farmaajo waa inay yar dhali karto abiya waa inay yar dhali karto Muuse bixi uu ka yar yahay dadkan aad la shiraysa gadahaagiiba ma aha waa ka Soomaaliya koorankii dadkeedii way u daysay 2 bilood wayna ka dhintay adu maxaad samaysay maxaad noo qabatay wax alla waxaad noo qabatay ma jirto marka anagu aqli caafimaad qaba oo dadkan u naxayaan rabnaa maaha aqli naga danaysanayo nagu lacagaysanaya waan daalnay kifaaya marka ceebta iyo dhilada ay meel ay taala nabad ma lagu maaragtay nabad ma lagu salixi karaa dad ma la isku macaaneyn karaa ma la istusi karaa waa maya de waa maya maanta dadkii aqaladaad ku caburiseen markay yiraahdeen aad soo baxdiino abiyaad tiraahin adaa inanka yaga dhiibay ciidan baa hor fadhiya dadkii anaa inii sheegay waftiga yimidow ogaada taana marka ceebta iyo foolxumada baa socota ummadii reer Djibouti sidaas loogu tuntay ummadii reer Djibouti wax nool ma leh ummadii reer Djibouti gaajiya haraad iyo silic iyo dawladaan baa kax kaga siisay marka aqal Ismaaciil ceebtaadi meel walba geeska Afrika aad sheegaya adduunka oo dhan bay ku faaftay kaasa doonaysa adiguna inaad imka dadkan iska iibiso dariskee ku og shicibka adduunka oo dhan Soomaali iska daaya aduu Itoobiya Soomaaliya meel walba waa laga og yahay meel aan laga ogeyn ma jirto waa lagu la yaabaa waa lagu la fajacaa waxa la leeyahay miyaan is ogeyn malaha isma maqlo odaygu maya wuu is maqlaa wax kala loo sheegaa ma weela la sameeyaa markii dadku naqaaday 2019 bishii 11 annagoo bad dhex raaciyayna ayaa waxa la yiri madaxweynuhu xildhibaano la shiraya xildhibaanada yaryar ee mustaqbalka waa dad 11 jir iyo 12 jir la shiray taamiyaadna ogeydeen xildhibaanadii xilka hayay ee loo dhaariyay ee codka shacabka ku fadhiyay wuu baalmaray caruur baa loo soo shiriyay oo la yiri kuwan uu la shiraya waa maaweeladii caruurta ay ahayd taasi garanay tan maantina waayo waa maaweeladii ciroola isaga isku raali gelinaya ha naftiisa waayo he feel guilty il se sent coupable waayo mas'uuliyadiisii ku fashilmay wixii loo igmaday buu ku fashilmay meelo kale isku qaadaya iyo dirbiyaan oo awoodeedaba lahayn aqal Ismaaciil waad fashilan tahay marka runta ku sheegan xaqiiqda kala hadlo waad fashilan tahay waxba Soomaaliha ku warwareegin Soomaali nabarka ku jira kala kaxeeyay waa adi Soomaali cadowga dhex fadhiya waa adi Soomaali fidnada dhex taala waa adi ka dhex bax annagaadna gubtay oodna sartay oo caruuraha iyaga jeelka ku jiraan hooyooyinkii yaryara naaska ku nuujinayaan jeelasha waxa aad noolaha dhay ma jirto marka iska soco kuwana waxba isku macaaneen way ku og yihiin war la qaba xiisa male un bay kugu yimaadeen markaad hari weyday ee guyi weyday waa kuwii ka tashaday ku baal maray xad halka la xigxagan dadka
dadkaagaa kuu baahan kuwan baa kuu baahan kuwan maanta xoolahooga aad kambiski ku gogashay ee gaajoonaya eed xabadda ku hayso eed hor fadhido eed inqilaabka ku hayso ee xaqoodii inay u soo baxaan aad u diiday iyaa kaaga baahan nabad iyaa kaaga baahan inay iyagu ku ammaanaan iyaa kaaga baahan inaad maslaxadooda ka shaqayso iyaa kaaga baahan iyadoo laisjecel yahay dadkan aad kala kaxaysay inaad ka dhaadhacdo xilka ma aha iyadoo dab qori qiiqla inaad nooga tagto laakiin waan kaa tashanaynaa ilaahay idankiisana si dhib yar baad nagu dhaafi si dhib yar baad nagu dhaafi oo dhumuc yar baad nagu dhaafi waayo waan kaa dheragnay waan ku barannay silic baan aragnay xoolaha yagii oo meel daran la geynayaan aragnay carruurta yadii shabaabka yagii oo wada shoomeeraan aragnay dulli iyo dulmi baadna badday dalka yagii baan qariib ku noqonnay maxaad markaa noo sheegi kartaa waxaad noo sheegi karta ma jirto cunihii baad dadkii kaga roorteen cunihii baad kaga roorteen idinkiiyo carruurtiinnu inaad noolaatiin unbaad doonaysiin idinkiiyo carruurtiinnu inaad dadka ka dhex muuqatiin unbaad doonaysiin meesha inay qaran tahayba waad ilowday caaqil ismaaciil caqliga kugu jiri de waa kaa caqligii wuu kaa suuray ma jirto garashadii way kugu yar tahay ciidan 700 oo militeer ayaad maxay ahayd magafe u wareejisay oo tiri booliiska ku dar 750 kaasi maxay qabanayaan waa su'aal meesha taale maxay qabanayaan dadka ma u sheegi kartaa 750 kaasi maxay qabanayaan militeerka aad ku wareejisay aanatolay magafe weyra haduu talaga maaragtay hawlgab noqday ay taladii ka wareegtay dee generaalaa jira waxa jooga daahira jooga waxa jooga subaglaa jooga waxa jooga maxamed ibraahim baa jooga iyo qaar kala badan maxaad uga meeraysan haduu weyrax meesha ka baxayo dee ninkani waa booliise maxaa armeega u geeyey waa aamin darro Soomaaliya aygii balaqoo baad aamintay dee aygii balaqoo waxba kuma keenayo raggan militeerka ee generaalada waxa aad tustay inaanad ku kalsoonayn qabiil baad uga roortay waayo weyrax haduu halkan ka baxo 3 dalnine taaganiba dee adiga kula ab maaha laakiin weyrax waa bahalkan imagafe waa bortakleegaaga wala bona tu feeq isagu aygii balaqoo Soomaha cali carro waxba ma naco waxba ma diido damiir male dadnimo male meeshii loo diraba aygii jas baa leeyahay waa kan sii boodaya aygii balaqoo markaa la been ma ahayn marka ragga aad u diidan tahay xilka eed iska ilaalinayso waa wadanide cirka kama yimin haddaad kuwaagii ka weyday kula maaragtay sinji ahaa amba jifo hoose kula ahaa ciidanku waa waxaad ku kala kaxayseen dee dadka ku kala damirteen waxaasaa socda dee 750 militeera ayaa magafe loo wareejiyey reer Jabuuti oo la doonaya wadanka sidii la doonay in lagaga yeelo booliiska laakiin lama oga 750 ka maxay noqonayaan maxay sameyn doonaan su'aasha ma isweydiisa caaqil Ismaaciil eta baraleeto borokalaami markaad magafe ciidanka ku wareejisay ma isweydiiseen dee guryaha la idinku iman kolna quryaha xiraysta kolba meel maaragtay u warwareega garirigtu idinku maqanta garirigtu idinku maqan tahay kan kale maaragtay gaardekoodka wuxuu ka gooyaa askarta kunfaran askarta uu haysta waa 750 askari bil kasta kunfaran buu ka gooyaa kunka afaran muxuu noqdaa 750 bishii muxuu noqdaa 750 marka sanadkii maxay noqotaa 9 milyan 12 bilood waa 9 milyan 9 milyan markaad u 8 sanadood bay sheekadani socotaa 9 milyan 8 markaad u qaybiso waa 27 milyan oo xoogiisa u xalaalahayn oo askarta kunfaran maalin bil walba ka gooyo soo hubsada askarta weydiyo waa awladaaq waa jaahilka halka hor fadhiyo laakiin xagga lacagta jaahilka maaha laakiin saliida buu yaqaan cilmi kale ma yaqaan saliid macsar waxay subagle kunfaran buu ka goostaa askarta waa 750 askartu haystaa gaarka maaragtay gaardekoodku waa 750 nin kunfaran markuu ka gooyo bishii waa 750 12 bilood waa 9 milyan 8 sanadood bay socotaa waa 27 milyan how you think caaqil Ismaaciil wakaade kaabaad u xalaalaysay maaha wadankii raggii aad uga qaadayna waad garanaysaa cid ay ahaayeen
you know very well si fiican baa u taqaanaa si fiican baad wada tilekone très bien cabdiraxmaan aadan sheer waad garanaysaa ina cabdi dhimbiil cabdo waad garanaysaa rag badan oo retreat gelisay parce que jaahiliinta baa doonaysa inaad meesha ku kala xasayso iyagu lacagta uun yaqaana inay adig ku keenaan dawata reejibuto hawsha halka bay maraysaa in cawladaq xoolaheeniibu ku lacagastay askarta caruurteena xoolahooda inanku adeerka u yahay cabdi samadna waad arki doontiin isagoo askartii shaqaaleysiinayo labaale qasaba ilna koonaqyaan ditu nasi ni lire ni écrire wakada marka maxay noo tala maxay noo dara inaan dalkeena u kacno ma reejibuto waa la inagu dul lacagaystay xabadaha la inagu laynaya xoogeena laga iibsaday xaqeena laga iibsaday laakiin way dhamaanaysaa waxaan leeyahay umada reejibuto guuliyo gobonimo iyo xaqeena uu kacno kacdoonku ha sii socdo isbedel dhaba oo xaqa ayaan doonaynaa waan gaaraynaa himiladeena waan gaaraynaa hadii ilaahay yiraaho waayo waan dulmanahay taadi badan baan anagu maaragtay barkinta noo hoos yaalo nalagu tuntay waxaan salaamayaa caaqil ismaaciil daalinkana dulmay ee adduunka doonaya inuu been u sheego dad hoostiisii maaragtay dab ka holcayo hoostiisii dab ka holcaya waxaan salaamayaa eta barale to proclamer kumbani kulalihi isjecel dalkiya dadka u daran naftan saarayda ah ee sixirka sirmooday ee sumal hadeen habeen seexanayn amalkeegi way haysaa marka ilaahay baan ku xawilnay si dhib yar bay nagu dhaaf jeel kale waa tagaysiin salduus baa tagaysiin hadii ilaahay raa waxaan salaamayaa dawladdan dulliga ah ee dulmiga ah ee dadkeeda ku daawanaysa dhibaatada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.